السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بان إدين سلام يا ملكستو أرجوكتاني إسي كستو آدي مغليسان هالكني ومرتهاجي waxaan jeclahay horta waxaa la yiri jiirkiis la haysta jidinka ma qoslo qof asagiiba waxa weeye lagu dhagan yahay oo social media ceebtiisii taalo hadduu yiraahdo waa aamusaya oo uu xeeriyo wax badan xeeriyo runtii bay adkaanaysaa inuu mataqaana qofkaas caafimaad ahaan iyo maskaxiyan iyo caafimaad ahaanba u noolaado way adkaanaysaa. intaan u gudagelin barnaamijkan ka gun leeyahay qof walba uu fahmayaa qof kastana uu garanaya waa garnaqsanayaa maanta soomaaliyey inaan garnaqsado ayaan halkan usoo fadhiistay maanta aniga oo garnaqsanaya haddana garnaqsigaasi waxaa igu keenay halkan waa social media wixii ku jirana dee waa si igu jiraan kama baxayaan. waxaan rabaa marka barnaamijkan inayna ku dedegin in aad mataqaanaa idinku aad mataqaanaa aniga oo xaqa iyo xuquuqda aan leeyahay difaacanaya inkastoo aysan meeshaan maxkamadii ahayn haddana in aan ka hadlo waa ka firsan waaye bal videoga marka aan wada daawan arrin aan ka naxay baa la iisoo sheegay arrin aan ku farxin baa la iisoo sheegay والحمد لله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون. والله قالي وحين قعد صنايا وحالي المصورة أنا قال لي هاي وقاون وويب سايت كجرة وسوشيال ميديا هوريجاية وأنا مصورة أنا قال نكي قبي قعنتيس أنكو أوجا أنا لبض السنة قبي لبض السنة إلى النولا aan gacantiisa ku ogaa aniga laba habeen ka hor oo ilaahay igu og yahay ilaahay maqlaaya oo sankayga neefta ka bixinaya maxaa la dhahaa laba habeen ka hor oo video la ii soo diray qof aanan garanaynin iyo number aanan garanaynin whatsappka iiga soo dhacay waa fiiriyey waan ku naxay. ilaahay iga sareeyo waxaan adduunyo waayo waa laga tagayaa adduun iyo aakhiro waa kala badan yihiin xaqiiqa aniga haddaan been sheegaayo oo aan been ka sheegaayo videoga laba habeen ka hor la ii soo diray qof number aan garanayn la iiga soo diray wuxuu ahaa video wuxuu ahaa aan ku ogaa ninka i qabay khadar gacantiisa waa gartay okay marka hal mid baan rabaa marka dadku caqli bay leeyihiin qof bini aadamka ah barnaamij horta aan ka hadlaaya waa barnaamij aniga lagu soo eedeeyey walaashay Fahiima waxay igu tiri khadar videoyaal aan ku ogaa ayuu YouTube ayuu website geliyey oo ninkayga hore ay qabay buu ahaa website ayuu iga geliyey oo website-ka waxyaalaha dhaqan xumada la geliyo aan sida ku ogaayay aan u diray uu geli gartaas ayaan rabaa inaan garnaqsado su-aashaas ay walaashay soo jeedisay ayaan rabaa in wixii ka runa iyo wixii ka beenaba aan horta idiin bayaaniyo. ma diidana horta aniga inaan xaaskaygii hore ee Fahiima aan dad u isqabo wanaag wada nool ahayn laakiin tan waa ka badbadis marakan waxa waaye wax aynu u dulqaadan karnaa. okay videoga marka su'aalaha idinka intiina aqliga baan la hadlayaa. su-aasha koowaad videoga waxay marka koowaad video waxay ku leedahay website baa la iigu soo sheegay ee yaalaan waaye haddana maxamed buskud wareysigiisi waxay ku leedahay videoga laba maalin ka hor baa WhatsApp la igu soo dirayo adiga oo mataqaanaa video noocaas oo ninkayga aan ku ogaa ayaa halkaa la geliyay bal labada horta isqabadsii walaashay Fahiima aan ka sheegaya videoga laba habeen ka hor la ii soo diray qof number aan garanayn la iiga soo diray wuxuu ahaa video wuxuu ahaa aan ku ogaa ninka i qabay khadar gacantiisa. okay su-aasha labaad waxaa tiri kayskayga maxkamad waxaan geeyey booliis baan geeyey meeshan waa UK waxa weeye waa la kala baxaya xaqa iyo xuquuqda qof u leeyahay lama duudsiinayo. kayska markii la geeyo booliis ee statement la qoro way adag tahay in qofka xataa uu qof kale xiriir la sameeyo. kayska marka booliiska la geeyo booliisku wuxuu sameynayaa qofkii wala xiriiraya soo ma waaye adiga oo kayskii booliiskii sidee iga codsan kartaa videoyaasha aad iga haysa delay taasna arrinta ka dambaysa idin sheegaya
midda saddexaad laba qof oo isqaba oo xalaal isku qaba sababta ay video isugu duubayaan oo ay qof kale ugu diraya maxaa looga baahan qofkii nool baaba laaya qofkii oo nool baaba halkan taagane sababta video sawir image dhaqdhaqaaqaya ama video soconaya faa'iidada uu qofka naandada waaweyn baan nahay moogtahay 15 jir kan ugu yar meesha ku jira 15 jir waa gaaray video image dhaqdhaqaaqaya iyo qof nool oo neefsanaya farqiga u dhaxeeya idinka waa fahmi kartaa nin naagtiisii haysto oo la jooga video image dhaqdhaqaaqaya wuxuu uga baahan yahay markaan joogay aan kala maqnayn oo aan waayada wada joogin oo ama Afrika aan jiray ama mataqaanaa hal iyo ha tiraahdo ha video iga duub wax noocaas aan u duubay aan u diray iga khabarkii laakiin waa wada joognay xilligan wada joognay video uga duubay inaad caqliga dadka ka gadan day ma soconayso aan rabaa inaan aniga oo aan khadarna iska dhigayn fahimana iska dhigayn inaan xaqiiqada bayaaniyo kadib aan isu buuxsho anigu aan isu garnaqsado idinkana aan xaqiiqada intu okay midda saddexaad 2019 bishii October haddaysan ahayn September dhamaadkeedii October labada mid inay ahayd baan jeclahay 2019 bishaara cali baanday walaashay way joogtaa waa markhaati nool okay video ay naga duubtay ani ayada oo fahimo oo wada joogno waliba aniga oo ka qeyraysan oo ka xun waliba dadka qaar ay ceeb iga leeyahay uu soo oohiyo been buu u jilay leeyahay baa jira videoga waxay ku leedahay khadar wuxuu igu garab istaagay khaladka ninka Jarmalka jooga oo iga galay marka Jarmalka aan soo sheegaya wiil waxa jira Jarmalka jooga oo mataqaana maslax iyo miyaa la oran jiray wax noocaas ah في أي وذا شيء كسر جرين أنا قم أنت عنا فيهم يسقوسن في يلا ودرتي نكاس أو كل كاتي مركدي مركان وقاعدة أنا أسقوسني وأيضا كل كاتين يا جرا في ياشا مركا سوشيال ميديا سكستويا لو كساروين سكستو دعويني مركز وامر مركز تويا لا مركا فيديو كاس إيميج كاس ومن حقيقة أو شراء أو يوتيوب كي فيسبوك كي ميرل بايلا ولي وكانت من ما كوا كلو أنكسرني أو يعني أب وفرح باتشي أو كواس إلى هاي وحلو قولي إن قعنت هذا كسارة ويلكي لها فيسبوك قاس يعني قعنت هذا أيام كسارة فيسبوك أو قناة كسوان channel كسوان عوان كسوان كحرة أوكي مركا ويل كاس مركا عيني شيء فيديو مركا أي كل هذا يجري ويل اللي باتي هالكاس شوقة بشارع وشكاين سوا فيديو كسوان دوبي هاي سلاس أنت تعال نوصل لعبنا tii haddana dib ugu noqono dhibaatada ishada idin geysatay isku dirkeena waxaan ka warqabaa inay xataa ay sawirro khaldan ama waxba waan ka xumayna ku weydiiyo fahimay laakiin aad raali ahaanshiyaha ku weydiisanaya sawirro iyo waxyaabo khaldan in lagugu dhibaateeyo oo inaad soo sheekaysan jirteen hadda ka hor uu markuu ogaaday inaad maanta family noqotay xilligii uu khadar waddanka yimi uu markaas si musalsala uu soo dhiga baraha bulshada ninkaas Jarmalku degan yahay magaciisa saddexan maxaa la yiraahdaa wiilka waxaa la yiraahdaa Cabbaas Cabdiraxmaan wallahi muddo yar baan isla soconay intaan qadar isku magaalo ahaan ku kayim magaalo wuxuu degan yahay Frankfurt tuulo yar Frankfurt agteeda oo degan yahay marka Norway uu deganaan jiray waxaas ku lahaa uu gabar buu dhalay gabar yar buu leeyahay 5 jira Norway buu ka soo guuray xaaskiisa way kala tageen wiilku waa wiil habar wuxuu ka soo Jarmalku u guuray 17kii ha wada ka fiican baan dhex martay oo yaani waxa xitaa ku heshiin in aan u tago oo isguursano oo halkan keenay maxaa laakiin cadaawada gaarsiiyay bay kula tahay in heerka sawiradaada oo adeegsada baraha bulshada sawirada qofka waxa waaye sawirada marka la soo dhigay waxaan arkay dad badan oo ku qoslaayo anigu ma farxayo sawirkayga in public la soo dhigay nin wax soo guursado gabar dhalayo waad ka filan waan ka filan waay runtii masawirka ugu horeeyay 2017 buu soo dhigay masawirka ugu horeeyay hadda la xidhiidhay sawirkii ugu horeeyay markuu soo dhigay ma tiri Cabbaas Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa Cabbaas Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa وانا سجوبة دي قلت لي يعني ركض كان يدقين كان يدقين جرمل كان مقالة دي بكدقين جرمل مقالة يرب بكدقين هذا مقعد ما حسست لك فرانكفورت marka saan u fahmay sheekada ninkan khadara waxa la rabaa in la yiraahdo videogaas looga dhigo dhaleecayn iyo aag marka waxa la rabaa videogaas in aniga dusha la iga saaro saan u fahmay ama wax kala jiro videogaas video aan ahayn baa la duubay oo qola kale ama waxba la sameeyay oo kanaal baa la geliyay si aniga la yiraahdo asaga ku ogaa oo u diray si aniga la igu yiraahdo
okay intaas horta waa isla fahanay soo ma anaa soo haray marka aniga khadar ah intaan website sameeyo aan image xaaskaygii xalaashaydii gogoshaydii maryahaygii in aan geliyo xataa waali u malayn ma inaan gelin karo wallahi iska daa miir qab iyo mataqaanaa anigoo caadigaygaan inaan intaan geliyo oo qasdo inaan youtube inaan intaan sameeyo fiidiyoyaal aan qaado aan website geliyo inaad waxa way gar walba islaam macquul meel noqon ana waala xataa ma lahays macquul noqon okay arinta marka maxaa ka runa maxaa ka beena inta markii la ogaado qof walba ogaanaya meesha wax ka jira arinta marka aad idin sheegay shaakaas cad aan qabo waxa soo gashtay wax kala ma arinta ugu weyn ee laga ugu muhiimsan ee meeshan laga rabo waxa weeye in shaakaas cad lagu saxeeyo sharafteeda lagu dhaco maqaamkeeda lagu dhaco diinteeda loo gafo la icaayo la idibaateeyo mataqaanaa in aan nolol samaysan lagu dadaalo waa group iswata oo barnaamijkan ugu talagalay in ay aniga igu dhaleeceeyaan igu dhibaateeyaan ay mustaqbalkaygan ugu ciyaaraan waa u fahmay dad yarna ma ahan okay marka Soomaali weyn baa marka hal mid weydiinaya Soomaaliya shalay wax walba waa idinka qaata Soomaaliya shalay wax walba waa igu tiraahdeen Soomaaliya meel kasta shalay waa igu rafaadiseen Soomaaliya si walba shalay waa iga yeesheen wax allaad ay wax harteen waa iga samaysateen saasa ii kala goosgoosateen laakiin maanta idinka yeeli mayo aniga oo sidaas la isi ceyrsanayo intaasoo dhibaato wali aan aamusanahay oo xataa cadaymaha aan hayo oo waxyaalaha aan hayo oo dhan aan soo bandhigin oo aan fahmin arrinteeda ka hadlin oo la aamusan haddana idinka qaadan maayo walaalayaal dulmi aniga cad la igu samaynayo har cad inta la soo fariisto qof ilaahay maankiisa iyo galashadiisa iyo muuqaalkiisaba dhamaystir intuu aniga soo fariisto uu rabo inuu igu aflagaadi igu dhaleecay igu dhibaateeyo sharafteedan ku ciyaaro Soomaali idinka qaadan maayo okay in qofkii aqal la waay taarto waa wax shay inta ugu filan fahima ay soo harta fahimo runtan ku sheegaya wala marakan farta aqortid waa kula qoraya farta aqortid waa kula qoraya waxaan ka wadaa horta aniga YouTube dambe barnaamijkaaga ku saabsan ma ka hadlay kana ugu dambeynaa waana balan sababta aan uga hadleen waxa way meesha maxkamadii ma ah wadanka aan wada joogno sharci baa ka jira qofku sharci iyo xuquuq iyo leeyahay laba statement baa loo kala qaadaya mid waa domestic violence oo qofka hadii dhibaato u geysto yani qaabta ama tusinaysa wada mid labaad ee aan raba inaan sharciyan kuwa ugu wada hadalno waxay tahay qofka porn star ama sameeye fiidiyoyaal khalad ah qof ka sameeyay oo gudbiya revenge porn site sharci la yiraahdo qabanaya qofkan wuxuu kaaga yani wuxuu isku dayayaa in uu kugu dhibaateeyo fiidiyoyaal noocaas hadii marka qof noocaas oo kale meel sharci wada sharci u jooga uu sameeyo sharcigaas qabanaya waa intaas oo sano xariga dhibaato intaas in ay buu maraya dii la waayo marka blackmail baa la yiraahdaa hadaa marka aniga blackmail igu sameeyay oo adiga ama soo jeeda ama sii jeeda video inta iska aan website gelisid oo aad rabtid in aniga u dhibaataysid horta evidence baa laga rabaa wadankan wadan sharci la waayo sharcigan kala baxayna wallahi billahi tallahi markan ay ka dhamaatay aniga kuma ceebaynayo kuma caynayo kuma dhaleecaynayo kuma dhibaataynayo waana isubaa guurka ilaahay baa jideeyay furitaankan ilaahay baa jideeyay laba wada loo kala yeelo haddii marka nolosha la isku fahmi waayo guurka oo wada noolaanshaha la isku fahmi waayo ilaahay wadadan kala jeeyay wuxuu yiri walaalayaal kala baxa ku kala taga maxaa ii daba socotaa maxaa iga rabtaa soomaynaan kala tagin soomaynaan kala harin walaal allaha muuse allah ahayn ma iga harta inta haddaa fahmi weydid sharci baa noo dhaxa kiiska booliis baa geysay soo maaha booliskan sugayaa maxkamadda haddaan waayaan anaa geynaya kiiska oo wallahi oo billahi oo tallahi anaa geynaya waayo waxaan it's too much way ka badan tahay intii xadkii waa dhaaftay fahim markan xadkii markan waa dhaaftay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri qof walba ii nabadgeli shaydaan jin wax walba qof kasta oo nool aniga ii nabadgeli anaa la xisaabtamay
laakiin adiga waxaagu ma ahan nabad waan kaa waay xalay iyo habeen hore iyo hadda aan kula hadlaya indhahayga ujeedaan wallaahi bilaahi tallahi waa ka nasan waaye barnaamijkan waayo falsification toos oo loo jeedo haddaa marka caddayn igu haysato maxaad maxkamad u aadi weyd maxaad booliis u aadi maxaa u dacwoon weyd ilaa waddan sharcigaa joogtahay maxaa gacmaha kaa xiray dee waxaaga waa gumaysi laakiin aniga hadda bis qof la yeelan kara ma jiro maanta 2021 baa la maraya qofna qof ma yeelan karo iska daa adigu iyo ilmahaagana xataa yeelan kara iska daa qof weyn oo nool oo meel maraya ilmaha adigu aad dhashaydaada yeelan kara 2020 oo dhan baa cay iyo ceeb iigu dhashay iiguna dhammaaday 2021 ma igu daraysaa miyaan ilaahay qabo miyaan aakhira la jirin miyaan la isxisaabinayn miyaan la kala xishoonayn oo miyaan la jirin inay maanta god qof walba oo nool god ilaahay u samaystay ila gelinayo miyaan xaq ku shaqaynayn miyaan ilaahay laga baqayn arrintaa marka ma rabo inaan ku dheeraado inay qiira iyo cara qaado ma rabo laakiin waxaan rabaa waddo kasta oo sharci ah oo barnaamijkan u mari kara inaan u maro fadeexad iguma yara ceebayn iguma yara dhaleecayn iguma yara xumaato iguma yara wax kasta waan qaatay waan liqay intaa ka badan qarxaya intaa ka badan waa luwa barnaamijkaagu waa faan wala barnaamij aan dhammaanayn arrintan marka sida aan xaqiiqada aan doonayo waxay tahay inta caqliga leh oo ilaahay garanaysa way garanaysaa qof mar dhahaya waxa way video website baa la igu soo sheegay haddana codka la soo duubayo oo dhahaya video waa la isoo diray 2 maalin ka hor marka ay leedahay videoga website ku jira xalama habeen hore ahayd xalina waxay ku lahayd 2 maalin ka hor baa video la isoo dirayo WhatsApp lambar aan aqoon baa isoo diray waa been cad ma rabaan gabadha walaashay miskiinta aan dulmi ma doonayo qof kale inaan dulmiyo laakiin sida ay tahay aniguna xaqayga ka tagi maayo qofka haddii marka uu video uu leeyahay uu diro ama uu delete gareeyo ama uu qof kale u diro waa la soo helaya website-ka akoonka ku leeyahay waa la helaya mataqaanaa meesha uu ka soo dhigay waa la helaya IP address waxay yahay jira qofku meesha uu ka isticmaalay videoga hadda aan duubayo meesha aan ka soo geliyo xataa waa la helaya hadda amoodi fahimo inay wax qarsoon yihiin modern world baan joognaa wax walba waa digital waa recording waa evidence muhiimadda ugu weyn aad leedahay aad ka leedahay barnaamijkan marka aan soo noqo ani adigu waa ogna laba qof oo qof waxa la yiraahdaa si aad u baratid ama jidin la cun ama jid la raac ama jidin la cun ama jid la raac marka lagu leeyahay qofkan si fiican baad u baranaysaa qofka ku yaqaan aniga waa barnaamijka aad ka leedahay oo dhan waa ogahay siyaasadda isticmaalaysa intaan dhibaataa maxaan u maraya waxaan oo dhibaataa maxaan u maraya waxaan oo hadal maxaan u dhahaya waxaan cadayna maxaan u keenaya bal gabadhaas hakaada ka had ma iga harin mana iga haris anu marka ehel baan leeyahay tol baan leeyahay dad ilaalay baa jira haddaan khaladka anigu aan geystay waa kaa garbaxaya tus baan diyaar baan u ahay haddii aadan waxbana igu hayna allaha aadlaha duyaha iga ha ummadda soomaaliyeed marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dulmigaan cad oo walaasha igu samaynaysa qof walba caqli lagu fahmaya qof kasta oo garashada lagu fahmaya qofkii aan fahmayna ee qof diin iyo garashada ma aha ilaahay wuxuu jideeyay qof islaam ah oo aad gogol la noolaatay oo aad la dhaqantay oo aad la faraxday oo aad la qosashay haddii aad dembi ka gashid waxa weeye adaa waxaa tahay qof xun adigaana mataqaana xaqu feeruhu ka dilaaca marka barnaamijka hadda waxaan u fahmay xaqii baa dilaacay haddii afka la qabto xaqa wuu dilaacaa xaqa haddii afka la qabto wuu dilaacaa fahimo shalay aniga ayadoo fiidiyoyadaas anshaxumada ah ee social media oo dhan ku jira ayadoo anoo og baan anigu garabka anigu xabadka u tumo oon ku idhi anaa diyaar u ah anaa walaashay garabkaaga ah aniga ayaana diyaar ku ah marka aniga shalay fiidiyoyaasha adigu aad sida khaldan u samaysay haddii aniga haddana weli aniga aad igu dhibaataynaysid walaal waxaa weeye sharci baan kala saaraya marka sharci baan kala saaraya aad baan idin salaamayaa barnaamijka inaan ku dheeraada ma jecli inaan ka saxaada ma jecli laakiin waxaad ogaataan arrintan aad bay iigu soo laalaabatay iigu dheeraatay in aan mataqaanaa barnaamijkan inta Soomaali inta caqli leh waxaan leeyahay
walaalayaal barnaamijkan gabadhan waa igu dhibaataynaysaa haddaan barnaamijkaas aan sameeyey waa la ogaanayaa iyadoo bilaabaryo ah ayaana maxkamadda istaajinaya diyaar maano marka barnaamijka oo kooban waxaan doonayaa insha allah inaan sidaa kusoo gabagabeeyo aad iyo aad baa idin salaamaya barnaamijkan isgaarsiiya sii sheer gareeya khayr iyo barwaaqo idiin rajeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nooli kulanta